aba dawladdiisii loo bixiyay madax ka noolku waa baabuur Japanese oo aan buudi weyn lahayn wax badan lagu qaadi karo madaxay marka isagu marba geedka uu hoos fadhiyo yaa dawladdii tahay wuxuu doonana ku kacayo dhibaato badanna waa lagala kulmay noohantii waana xanuunkiisa iyo intii waa ma caafimaadkiisuna ma fiicnayna waa tibeerkii laga bedbedelay ala ay xal arintaas annana waqti badan baan gelinay iga rumayso priority inaanu iyaka ku bilowno oo waliba على عيسى عبدي ودور وين كلها باسمها خاتم وردن هذا السبب إلى هذا شوقة إنستيوت إيش ومدح كياهي أطبو قدك أنا إن بونتلاند وعاد سوقها ليني عبد الولي هو صاحبنا رير واشنطن دي سي إصلاحها إن أنا لقى قوسا taasuu aad ugu dhaganaa waqti badan baan gelinay laakiin faroole iyo isaga iyo ka hadda jooga midkoodna waxaan ahayn aan kugu shirtago waa xamar markaan tago aan noqdo anaa intan oo dhan iga tirsan yihiin wixii aan xamar ka rabo marka waa inaan ka helaa ama prime minister ama madaxweyne waa salaan dadka meesha joogaan dadun loo isticmaalayo wax meesha yaala Puntland la sheegaysa meesha ku murmaysa wax on the ground maamul jiro oo Puntland leedahay ma arkaysid ciidamo ay leeyihiin ma ay jiraan haddana meesha waxa quray ku haystaan waa xildhibaanada marka la dooranayo iyaga magacawda xildhibaanadii dadka loogu talagalay 3 sano tarbay ahayd inay yeeshaan mid iyakaaba markii horeba la tagay markii horana iyaga magacaabay haddadanna waxyaalaha ina farmaajo uu leeyahay waa su'aal adag wuxuu ka ogolaaday Siciidani inuu haddana isagu soo magacaabo wuxuu uga jawaabi waayay laano concessionka ina danina waxa ugu weyn oo xamar ka rabaa waa in uu noqdo sanadka iyo house-kaba dadka loo magacaabayo ee maakhir inuu isagu personally inuu personally Puntland laga marka isagu cod u helo isagii hadhowto dee wuxuu noqonayaa nin la yimaada inuu yiraahdo anaa baystaahina madaxweyne noqdo ama prime minister noqdo awoodiisa ayaa dee muuqanaysa haddana wuxuuba ku darsaday Jubaland oo alliance-ga dani oo dhashaya qaabku wuxuu ku noqon lahaa istiraatiijiyada uu ka shaqeeyaa isaga iyo ina faroole iyo Cabdiweli prime minister wuu ahaa ina farmaajahana prime minister nimada sabab uu ahaa inuu markii horena wasiir ka dhigo markii dambena prime minister nimada markii Kampala la isku qabtay ee raba inuu isaga iyo faroole iyo Cabdiweli intuba waxay ay kuuriga u jiraan nin walba inuu xamar ama number 1 ka noqdo ama number 2 inuu madaxweyne noqdo ama prime minister noqdo la'aanta sool iyo sanaag maakhir ma hawaysan karo hadda hadiiba alliance iyo tol siyaasadeed Jubaland ka helayna dee wuxuu leeyahay muuqatana waaba tay ka hor yimaadeen in farmaajo iyo cilmigan uu la waday 3 gobol waaba takhasab ay noqdo heshiiska ay galeen horta koow wixii wax lagu dhoobdhoobi karo 100% waa la jiraa laakiin haddana xal ma noqonayo ma noqonayo oo haddadan aan joogno soo maanta salaasama ma hubno wiika bacdi waxa ay ku heshiiyeen inuu haddana sii soconayo laano marba nin cadhooday oo isagu dan qaran iyo dan maaragtay xitaa meesha uu ka hadlayo aan ka hadlayna dan uu personally isagu rabo dee danaha iska hor imanaya oo dee waxay noqonaysaa Soomaalida inta waxay u badan danaha xooga saaraya danaha anigu wixii lagu heshiiyaba hadday noqonayaan wax inoo midho dhalaya 100% waa taageersana in meeshaas ay degto oo adduun weynaha midaal baynu ka nahay marka laga hadlayo failed state ama dawlad burburtay oo wixiiba meesha ka baxday Soomaaliya ka koowa magaca adiga ma laga yaabaa inaad soo sharaxdo dawladda Soomaaliya maya anigu han siyaasadeed oo dambe igu hadhay daabaanahay geeska Afrikana wax badan oo fursadaha hadda ka muuqda
oo siyaalo badan oo taariikhdu waxyaalaha horeynan arki jirin baa inoo muuqda. Etoobiya lafteedii baa gelgelanaysa. Dadka hadda aaggan aan joognay maamulkan Soomaaliyeed oo haddaba ayba tahay meesha qudheen nabad iyo xasilooni ka muuqato. Waxaan cali ahaan qabaa Soomaali isu timaada door weyn buu ku leeyahay dadka dhulkan degan iyo dadka waqooyiga degan. Labada meelood meel ficil iyo xamaasad iyo shacabka ah oo Soomaali la isla raadiyo hadda Hargeysa iyo Jigjiga meel aan ahayn kama bilaabmayaan. haddii Soomaaliland madaxweynaha la siiyo caasimadda Hargeysa laga dhigaa qolada inay midoobi karaan labada wallaahi la islaba soo qaad sidaan maqlayo laakiin bahasha ku soo boodada laga fiican nimankanu dagaal bay galeen gariya gardarraba dadkoodana waxbay ku kiciyeen waqti qaadanaysaa wixii in fahamka dadka lagu noqdo oo si dhaba wax looga dhaadhiciyo oo loo tuso danta ay hadda intay haystaan inay u fiican tahay in ay mid weyn ka mid noqdaan iyaku oo ay leadershipka la rabo haday madaxweyne iyo caasimadiiba la siiyo laakiin laba nin oo qol madow isku xidhay arinta ma go'aamin karaan dadkana waa lagu beeray nacayb koonfur waa lagu beeray waa la ina xasuuqay waa lagu beeray qabiil ahaan baa leeno laayay waa lagu beeray wax rajo oo aynu ka leenahay meesha ma jiro yaa ku beeray leadershipka SNM baa ku beertay SNM waxay of course iyakuna waxay dagaal ku galaan bay rabeen haddaadan dadkaaga adaa yaqaana aadan jahayn karin oo wuxuu la qiimeyn oo tilmaamaynin halkan ba oo analaf lagu dabamari karaa maahe dhibaatooyinka hadda Somaliland gudaheeda ku jira uma bagelayno laakiin waxay macna ku yeelan karaan oo iyaka laftoodu isku duubnaan karaan hadday wax Somaliland ka weyn ka mid yihiin oo danaha ay leeyihiin iyaka oo ay soo jeedaan oo ilaahay aqli iyo xikmad haynagu wada manaystee ay xisaabtamayaan inay waxay diideen iyo waxay gol yihiin laakiin madaxweyne ku doonayaba ha noqdeen wada hadal rasmi ah oo kala leh heerar kala gooniya oo bahasho hadday tartiib u bilaabanto la isla ogolaado wada hadalkan wixii ka soo wada baxa aan sugno laakiin haddii laba madaxweyne ay ku sii isla soo qaadi karaan waa meesheeda waayo siyaasiyiinta inta badan hadda waxa kulmo waa siyaasiyiinta shirka ugu dambeeyay hadda madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale waqti uu hogaaminayay madaxweyne Musabixi soo lama dhigi karo laftooda Farmaajo wuxuu ka cabsanayaa in waddanka hadii la kala qaybin lahaa Somaliland taraf rasiin lahaa wuxuu ka cabsanayaa shacabka Muqdisho iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed koonfureed Musabixi laftiisana si la mid ah inuu shacabka Somaliland sidaas sheegtay SNM inay ka dhaadhiciyaan in dadkan la xasuuqay inay Soomaaliya la midoobaan inay dadka rabin labada dhinac soo muuqato siyaasiyiinta siyaasadii hadday taatay si fiican baad u dhigtay soo in la faguro oo si tartiiba oo hadday noqonayso technical committees hadday noqonayso wixii Soomaaliya arrimaheeda danaynaya oo si kalsooniya looga wada shaqeeyo laakiin nin safiira ama laba madaxweyne yaa yiri wixii maanta ka dambeeya amankan iska shumaynayna waa isu soo boodno ma shaqaynayso xisbiyadii laftooda culays bay war xisbiyadii iyo shacabkii iyo saxaafadii iyo waxaan in la bisleeyo in la bisleeyo yaa loo baahan halka ugu dhow wuxuu noqon karaa waxyaalaha haddaba lagu turtuurayo ee haddaba waxyaalaha la sheegayo waxa la yiri madaxweyne inuu noqdo qof waqooyiga laga doortay inuu madaxweyne noqdo waqooyi kale maahe waliya reer Sheekh Saxaaq qof laga doortay inuu noqdo laakiin laba term ama saddex term baa la isku hayaa ma 8 sano ay noqono waa laba term mise 12 bay noqonaysaa waa saddex term yaa laga doodayay waxaas waa quudan jiran qoryo u goro waa arrin aan la bislayn oo in la yiraahdo madaxweyne hadda lagaba marmo imsa jeeru madaxweyne ama isagu ama kuwaas ahaanaya waxa ka horeysa inta ma maqashada gaarin war wixii waxna aan qalana mindiyahana qarsano laga fiican dadkan qancin buu u baahan yahay kuwa xamar jooga iyo kuwa halka joogaaba in badan oo xamar joogta war Soomaaliland iyo warkoodan jaqjaqadooda naga dhaafa waa aqaana waa jirta kuwa halkan joogoon oo laanaka iyo koonfureysuma iman karno
laakiin haddana waxaan ogahay labada dhinacba xidhiidho hoose oo ka dhaxeeya oo qolyo Somaliland ah oo xamar dawladnimo iyo qarannimadaas maahee qabaa'ilka qaarkood ama xisbiyada qaarkood ku xidhan oo kala doodaya oo siyaala u arka wada shaqayntoodu inay danahooda ku jirto kuwa xaggaa joogaana kuwo laftoodu in badan oo hadda Booramadan iyo khaasatan Hargeysa xaasaskoodii kuwa ugu magac dheer xaasaskoodii iyo reerahoodii wuxuu ay u joogaan haddaba bahasha dhuumaalaysiga laga fiican intaan Soomaalidu midhaynayadaaba sagaaradu inaga fiican waxaan qarsoomayn bay qaraysaa intay meel ku kaadido ama ku xaarto ciid iyadaaba toilet training inaga fiican innagu waxbaba haddii baadiyaha la joogo banka loo baxo waxbaba lama qari macnaha inay isku yimaadaan si rasmi ah loo wada hadlo si rasmiyana loo hadlo wixiina la dhiso wixiina foundation uu yeesho asaas inuu yeesho waqti bay qaadanaysaa dadkana loo bisleeyo la qanciyo waana qabaa dadka reer waqooyigu waa la qancin karaa anigu wataan xalay ahaan qabo waa la qancin karaa waxa dantoodu ku jirto iyaga oo soo jeeda oo xisaabtamaya waa la qancin karaa laakiin bahal la dhuundhuumanayo in shaki sii galo iyo nacayb mooyee waa in la sii kala fogaado mooyee waxay ku imanayso wanaag ma wajiro wax natiijo ka soo baxaya laana waa ognahay farmaajo iyo abi iyo musabixi February waxay ku kulmeen Addis Ababa waxbaaba hadal baaba bilaabmay ka bacdina waaba tii Djibouti la isugu yimi khudbadihii la akhriyayna waa maqlaynay waxa la leeyahay waa la isla soo dhaweeyay ee bulshada qolyahan international community-guna ay dhinacyada hayaan ay wadwadaana waa maqlaynaa wixii la isuma keenayo marka run ahaantii opportunity waa muuqdaa laakiin si degan oo xikmadaysan in looga doodo oo loo lafaguro oo iyada oo la miir qabo wixii lagu heshiinayay markaa lagu heshiiyo waayahay doorkiina idinka dhaqaatimatiin nacam doorka iyagu wuxuu yahay annagu Somaliland dhul ahaan waa nahay taariikh ahaanna waa nahay laakiin haddana de qabaa'il baanu nahay qabaa'il ingiriisku wada xukumi jiray waxaan la ogeyn dadka Soomaaliya sanaa ku dhashay ingiriiska heshiis lama gelin dagaalkii maxamed cabdilla xasan yumbe dhulka ku soo galay qabaa'ilka kale sayla ilaa laga gaaro ceelaayo qabiil walba oo degani oo reer Sheekh Saxaaq iyo Warsangeli heshiisiyay la saxeexdeen waxa kale xuduud caadiga ingiriisku sameeyay xuduudka caadiga iyo degmooyinkan iyo sidan wuxuu jireen nimankan waana leesiyay dhulkana waa la wada degaa sida Puntland macnaha ay u tahay Puntland ayaa dhulhaan idinka Somaliland u tahay Puntland mar walba koonfur bay ahayd mar walba Talyaanigii baa xukumay annagu mar walba waqooyigan raas annaga iyo Puntland muddo yar oo nugaal gobol nugaal la yiraahdo la sameeyay oo aan badnayn sanad xitaa ahayn yaani weliga maamul wada noqon haddaba midda meesha taala ee qolyahana aan anugu ugu imi maamulkii hore meesha joogay madaxweynihii hore joogay heshiis baanu galay muddo 3 sano ah yaanu wadanka dibadiisa isku arkaynay Addis Ababa Djibouti Nairobi Imaaraat heshiis baanu October 20-keedii 2019 ku galay Caynaba heshiisku waa WhatsApp YouTube-kana waa ku jira heshiiskaas waxay ahayd kow Somaliland la wada leeyahay inaan dhisno marka Somaliland la wada leeyahay oo hadii ixtiraaf raadinayso la wada raadiyo hadii gooni la ahaado yaad ku heshiiseen waxaanu ku heshiinay exactly Somaliland ama wax la wada leeyahay oo cidina marti ayaan ahayn cidina magan ahayn waa in la wada dhisaa heshiiskuna taasaan ugu taala heshiiska waxa noogu yeer waxba waxa qure ka dhaqan galay waa laba arrimood kow colaad baa jirto waa isdilayna oo ciidamadooda iyo annaka ciidanka iyaga khaatumo oo de shacabku leeyahay reer khaatumo leeyahay yaa la dagaalamay waxaan isku haynay dhulka iyaga annaka ciidamadiina naga baxeen
dhulka iyagana inaan xoreysanaan rabnaa heshiiska inta laga dhaqan gelinayo aan kala joogna loo jeedaa maya heshiiska waxaaba looga dooday nabad aan isugu nimaadno oo wada hadal oo waxaynu wada leenahay aynu dhisanno heshiisku waa kaas waayo laakiin mar haddii aad maamulka ka mid noqonaysaan ciidamada laftooda in la qarameeyo maadaama ay u baahan yihiin dee taas waa arrimaha detailska loo gelayo arrimaha noogu yaalla meesha dastuurka in la furo waxaan la leeyahay hadda baarlamaan baa laga hadlayaa baysku waxaa la yidhi 1960 buu noqonayaa 60 heshiiska dhamaystirna macnaha la jeedaa heshiiska in la dhaqan geliyo kadib markaa wixii kale aan ka hor wixii kale ciidamada in la qarameeyo ciidamada tan iminka Soomaaliland miisaanka weyn ku ah ciidamada beeleed yaa dhulka jooga la caagaystay ilaa 6800 oo ciidana yaa la leeyahay baa Soomaaliya sanaag Soomaaliland mushahar siisaa hadda xiriirka Soomaaliland idinka waa sidee xiriirka Soomaaliland waxna waa noo bilaabmeen kuma aanna kala kicin waxaana ku rajo weynahay inay iyakana dantooda ku jirto annana ku jirto heshiiskaas inuu hirgalo hadduu hirgali waayo de Muuse Bidiino iyo Ciise Bidiino wala iska kala tagaya waxaanu ku heshiinay oo aan anigu cali ahaan oo khaatimo matala aan Hargeysa ku joogayo haddaanan ku heshiinay ma jirto waxa uu meesha taala meelaha iyakana waa ku idhaahaa Soomaalidu waagii hore waana la dagaalami jiray xikmad iyo gabay iyo wax baa la isu marin jiray gabay hore jiray oo qoliyo aagaasa reer Buuhoodla iyo qoliyahaas marka dagaal iyo wax ka dhaxeeyay qoliyo gargaa timi oo xagga ka timi sidii ay filayeen in loo soo dhaweeyo loo soo dhaweeyo nin marka gabayaa meesha joogay yaa yiri midin ka hortag intay nimanku ama gabya lahaayeen ama iska tagi lahaayeen yu gabi tiriye oo leeyahay saddexdii cashaba waa intii sahan ku laalaaye waa soo sidna xiriir hisaabka loo talay ii doorsal fududa wuxuu sugayay muu dhowro ana waxaan si waray gabarkaas la oran doonaa ninkii khaatimo meesha u joogay waa sal fududaaday wixii oo laga shaqeynayo yu ka dhaqaaqay hadda 3 sanaan joogaa meesha hadda cidina ay oran mayso waa sal fududaad haddii dawladda Soomaaliya ay maamul goboleed u aqoonsato sool sanaagi cayn halka ugu dhumay maya weligeed xamar kama suurtoobayso dawladda Soomaaliyeed oo arinta ku dhiiranaysa sababtana waa ku sheegaya xamar baarlamaan baa jira Puntland xildhibaanadan meesha joogay waxaan ay urursatay baarlamaankay ku jiraan kaabinetkii bay ku jiraan sanadkii bay ku jiraan qoliyahan reer Sheekh Saxaaq ama dir waqooyi iyana xildhibaanay leeyihiin iyaga kaligood baaba dhowr kontomeeye leh labada qolo midna ka suurtoobi maysa inay ka ogolaadaan maamul xamar jooga in maamul loo dhiso Soomaaliya sanaaga shacabka xamar joogana dad u dagaalamaya oo iyo miidiyada meesha midnimo Soomaaliyeed iyo dadkan kan iyo kaasi waxa istaayla marna ka suurtoobi maysa hortaagan in maamul goboleed gooni loo aqoonsado waxa hortaagay Soomaaliland iyo Puntland marka Puntland hadda waxay ka soo tashaday ogna Soomaaliya sidaas ay tahay xataa maadaama ay rabaan inay kontrolaan kuraasta yes marka idin laftiin inaa guddi madax banaan oo arintiin xaqii ka maqnaa inay u raadiyaan dawladda federaalka iyo caalamka warastan hadda ilaa markii maamulkan la sameeyay waa 8 sano moot 2012 January waa 8 sano waxba iska maanan hakranayn laakiin waxa meesha yaala cid arinta ku taageerta dadkan ama qabiil ha ahaadeen ama dad leh xuquuqda wartay dadkan inta idinku baleedihiin reer Sheekh Saxaaq oo Soomaaliyeed waxaanu xamar uga goosanayna danaha iyagii baan ku dhaxarka weyn anagana maxaa naga hor joogeynaa danaha iyagii baan idinka dhaxarka weyn yaa kugu taageeray marka kaliya meesha dantiina ka dhaxarkaysan ayaa diyaar u tihiin marba ka mid ahatan annaku waxaan labada kama maqnin annaku waxaan qabaa first step talaabada hore inay noqon lahayd annaga iyo Soomaaliland waxaan wada leenahay marka annaku miir qabna waxaan u qabaa in Soomaaliland la wada leeyahay ay noqon karto meel laga raadiyo Soomaali dib loo raadiyo haddii Soomaaliland ay ka mid noqon lahayd Soomaaliya si rasmi ah maamulka ka jira hadda u ogolaan lahaayeen in Soomaaliya ay ka mid noqdaan Soomaaliya sanaagi ay heli lahaayeen cadaalad ku tahay Soomaaliya
somaliland iyadoo iskaba socota iyagaanba hadda waataynu hore uga hadalnay iyagaanba rabin in somaliland ay ku biiraan haddii ay soomaaliya ka soo qaadeen ka mid yihiin waxaan ka hadlaynaa caqabadaha hortaagan soo lishanaag hadda puntland iyo somaliland hortaagan haddii maadaama dhulka hadda somaliland ay maamusho haddii somaliland ay ogolaan lahayd nidaam isla ogolyahay in soomaaliya ay ka mid noqdaan ama la midoobo ma isleedahay culeyska hadda soo lishanaag ceesha ma ka dii lahaa demay marka annaku waa arrintu intaa waaba ka sahlanaanaysa haddii soomaaliya markaa laga wada mid noqdo dee soomaali weyntaasaan wax la qabnaa markaa muranba meesha ma yaallo laakiin ujeedadiina soomaal goboleed ma hayn maamul gooni noqotaan annaku waxaanu maamul gooniya ku noqonaynaa marka ayan labadan maamulna hortaagan yihiin xamarna ayan waxba noo hayn markaasaanu rabnaa maamul gooniya natacaamil maca shaytaan markaa wix allaala wixii anana danaha iyaga aanu ku gaadhayn ilaa xataa hadday doontaan shaytaanka la tacaamushaan ala jeedaa sax waxaanu ula jeednaa ilan qolo walba danaheeday ka fikiraysaa meeshii allaale meeshay dadka iyagu ku badbaadayaan hadda soomaaliya oo aanba fiicnayn ama somalilandba aan fiicnayn wax badan oo yaa weliba laga sii liitaa waxaanu hadday sii socdaanna waa ka sii darayaan haddaan hadda wax laga qabanna midda quree ayuu noqon doontaa oo aan hadhaynin dadka mar walba waxa u furani waa inay dagaal ka xigaan haddii laga gudbo maamul goboleed oo loo gudbo nidaam xisbiga doorasho cod iyo qofa la gaaro sooliya sharaa'ic ceen dan mu tahay yaa gaadhsiinaya dee taa haddii tusaale ahaan dowladda soomaaliya ay gaarto qof iyo cod in la doorto oo maamul goboleedyada meesha ay ka baxaan oo awooddii maamul goboleedka meesha ay ka baxdo qof walba codkii voodka kusoo baxaya taas waaba inta la rabay dee laakiin intaan nool ahay taasaanba markaynu waaqaca dhabtaa markaan hadda ka hadallo axsaab saa u dhisanna ma jirto waxayna qabiilunbaa lagu meeraysanayaa waa qabaa'il markaynu doonnana qabiilka waxaynu aragnaa dee wax jaahilnimo iyo maaragtay sidii ibni aadanku u soo bilaabmay muxuu ahaa meelihii ugu horreeyey meelahay la soo maray gaaladu ama taariikhda marka laga hadlaya waxa la ibni aadanku wuxuu wax ku bilaabay ama inay xoolaha ugaarsadaan ama inay wild fruits birta ilaahay waxaa ka baxaayo cunaan markaasay haddana aadeen inay wax beertaan markaasay haddana warshado iyo waxaa saasay u socdaan innaku soomaali haddaan nahay taa horaan weli joognaa oo qabaa'ilah oo haddana qabiilkii marna waa laga yaxyaxayaa haddana waxa qurhe ku socdaa oo aan meella ku joogsanayn oo ah aan horumar badanna lahayn waa taa qabiilka arrintaa uun markaa annaga iyo somalilandna haddii aannan heshiin dee aniga dad baa mas-uuliyadii dhiibtay madaxweyne aan u ahay waxa waajibkaygu yahay iyo kii intaan ku noqdo inaan idhaaho wixii aan ku maqnaa suurtoobi waayey laakiin haddana waxaan rabaa laabta cid ii garaacaysaa ma jirto xamarna waxba kuma maqnaa puntlandna kuma maqnaa in waaqaci markaa u noqdo intaa midna kama haynee maxaa inoo dana in dib loogu noqdo shirweyne laysugu tago isaga laftiisa dadkan intooda badani tusbax bay wataan abtirsiina ah laakiin wax allaala wax loogu hayo oo puntland iyo xamar ugu haysaa ma jirto halkanna dee iyaga qudhadoodu dadka xooggiisu dadku ilaa ceergaabo ilaa dannood iyo wardheer yuu daadsan yahay halkan qudhadeedana wadaadkii muxuu yidhi tayday cuslaysay maxaan tarin inay cawday idinka laftiinnii yaa dee raba wixiina inaad dhistaan laakiin anigu waxaan qabaa wixii halkan aad ka dhistaan iyo wixii etoobiya ay ku dambaysa inay noqonaysa inay aad iyo aad iyo aad u taabanayso waxay soomaaliya ku dambayn doonto waxaa loo magacaabay ra-iisul wasaare cusub ra-iisul wasaare cusub muxuu soo kordhin karaa isleedahay maxaad ka taqaanaa wallaahi ninaan personally aqaano ma aha waxaa quruu soo kordhinayaa qolyahan farmaajo ku kacsanaa ee magac qabiil ugu kacsanaa horta waa ka kala degayaan oo dee nin reer galmuduga yaa la magacaabay awal tol is ururiyey oo guud baa jiray kii inta la filayeyba kolley waa lagu kala hadhay waaba laga yaabaa markaa intii muddo ah inuu fursad u helo in uu wax ku dhiso
doorashadana kolley doorashadii nimankii ugu qaylad badnaa lahayd doorashada saacad dib looma dhigayo yaa hadda waxay leeyihiin dee technically waxba ma suurtoobaya November baanu qabanqaabadeedii galaynaa oo doorashadii February baa la qabanayaa dee kuma suurto even hadday noqoto one person one vote qorshihii farmaajo ee qofku fardi qof walba inuu cod leeyahayna meesha ka baxday doorashadii wixii ay iyaku ku dagaalamayeen dib ha loo dhigay isagaaba ogolaaday haddana iyakii baa leh technically ma suurtoobayso marka waa la isla jala butaynayaa meel ay salka dhugi doonto ma naqaano laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa bal waxa ay ku sii heshiiyaan oo wax ku sii wadaan oo doorasho kulley waxaan anigu qabaa ugu yaraan sanad dambay qaadanaysaa ninkan prime ministerka ahna isaga qudhadiisaaba waqti u baahan uu isku tuso nin wax qaban kara tamay hadda waaba doorasho loo dareerayaaba hadda November yaaba axsaabti inkastoo la yidhi xisbiyadii waa laga tegay oo haddana indirect waxay noqonaysaa intii hore 4.5 la aado haddana 4.5 laftiisi yaan heshiis lagu ahayn oo sidee yaa qabanaya weli waa la isku haystaa waaba la sheegay meeshii la lahaa sanadka hadda waxaaba magacaabaya nimanka gobollada maamula ayaa jooga madaxweynayaashaasa sanadka wuxuu maamulay marka aad la kulanto siyaasiyiinta Soomaaliland ama siyaasiyiinta kale ee Soomaaliya ma kugu yaraa magaca madaxweynaha qaatumo dad diidaya oo odhanaya Somaliland madaxweyne quray leedayna waa jira laakiin madaxweyne Somaliland kama hadlayno anagoo organization baana organizationku guddoomiye madaxweyne waa yeelanaya laakiin waxaan waxba garan yay dhibaysaa madaxweyne aniga qudhataydu nimanaad rabto inaad garcada uga gashaan in iyadan balaysu iman ay dhan isu gurfiyaan oo yiraahaan waxaygii baaba lagu murmayaa aniga qudhadaaba uga tudhaya haddayba laga badaynayo anaaba la balwaatay anigu tayda jeebka aan bagashanayaa bal waxaan aynu laakiin ku wada hadlaynaa haddaadan ogolaan heshiiska wax laala waxaan sunnahay ma jirto inaad ka tunasho macnaha in lagu yar madaxweyne haddii dadkaada igu jirto dad diyaar u tahay dee madaxweyne laygu yidha macnaha igu fadhidaa ma jirto dad baan ka wakiilahay inkasta oo halkan aan joogo iyo meesha aan ka imi boqolo walba ay leeyihiin war ninku waaba nin wuxuu ahaa loo hanweynaaye maxaa u geeyey Hargeysa maxaa geeyey adeer danta Hargeysa waxaa igu maqaalaa waxaa jiray sheeko nin geeliisii lumay markaasaa isagii wiil dhalay baa geelii raadiyey waa kaliilo waqti kulul wiilkii baa yidhi alla aabbo meeshaynu maraynaa kulul ah aabba geeleenni baa maray buu yidhi waxaan u joogaa oo i geeyey waa danta ummaddaas anigu hadday tayda cali tahay laba wiig ma joogeen laanoo danahayga kale iyo waxay kalaan qabsanaya yaa iga muhiimsanaan lah laakiin yaan waxba bilaash laysu akhriin dagaalaan cidna ka dhabahayna yuusan annakana gelin nimankaa haddaannu nabad wax ku helaynana waa daba joogaa hadday noqoto oo shacabka iyo waxgaradka iyo culamaaudiin iyo barnaamij wax arrintaa diida anigu ma hayo laakiin maamulka iyo go'aanka ciddii lahayd arrinta waxaad moodaa inayan weli ogolaan oo aan diyaar u nahayn waxaa tahay ra'iisul ugu horreeyay ee dowladda hadda haatan madaxweyne farmaajo ka dhashay dowladda Soomaaliya waxaa tahay ra'iisul ugu horreeyay in ra'iisul ugu yeero shawarka mayta ra'iisul wasaare waxa aan ahaa haddii laygu yeedho taas waa waxaan soo maray dee qofka intiisa in loo qiro yaa habboon ninku hadduu safiir ahaa haddii uu madaxweyne ahaa hadduu wasiir ahaa wuxuu doonayaba ha noqdo madaxweyne uu ahaa in lo waa xilqaan waa asluub maaragta mudan waxaa tahay siyaasi aqoon-yahan maxay kula tahay xalka Soomaaliya haatan ee ugu dhow maxay muuqataa والله halka Soomaaliya ugu dhow aniga waxay igu muuqataa in siyaalahan hadda wax lagu dooranaya haddaan lagu barxin shacabku waxa uu rabo iyo haddaan axsaab la samayn arrintu waxay una noqonaysaa ila meerayso oo weligeed taasaa lagu jiraya intay arrintu qabiilka tahay xisbigiina qabiil ku salaysan yahayna cid mas'uul ah oo Soomaaliyeed oo hadda
waqtigii dowladihii hore ugu horreysay Soomaaliya madaxweyne iyo prime minister iyo wasaare iyo xildhibaan iyo dadka ninka ugu badan baa elementary school ka baxay dad iyagu wax isbaray oo akhrisan jiray waa jiraan laakiin wax dadka hore wax bartay kuma jiro laakiin leadership qualities bay lahaayeen oo dad badan oo waqtigaa joogay yaa haddana habkay rag maamul ama dadka u maamulayeen iyo hankay lahaayeen iyo yoolkay ku hiranayeen dee waa lahaayeen hadda dadkii anigu halka kama warhayo laakiin Somaliland oo kale sanadkii jaamacadaha ka jira ilaa 9,000 oo arday baa ka soo baxa anigu markaan ka baxay secondary school Sheekh kalaaska iyagii 14 baan ahay waa secondary school waa ka qurey wadankaas oo dhan jira xamarna 2 secondary school baa jira wax jaamacada ka baxa hadday ugu bataan 20-30 bay ahay marka dawladnimada la helaya waxaan badnayn oo waqooyiga iyo qolyaha koonfurta marka aniga waxay ugu muuqataa rajada Soomaalidu kulley waa jeclaan lahaa inaan ka agdhowaado waa jeclaan lahaa hadda ninku hadduu siyaasad ku jiro saad doontid wax ma sheegi kartid uma qori kartid inaan wax qorana waa jeclahay meel jaamacad ama jigjiga ha noqoto ama sabab ha noqoto meeshay doonaysaba ha noqotee haddiiba arrinta aan wada ay shaqayn weydo waa jeclaan lahaa meel aan u rogto geeska Afrikana aanan ka fogaan oo arrimahan ka socda ama warkeeda inaan hayo ama aan wax ka qoro waa jeclahay hadda waxa ku sugan tahay dawladda Soomaalida tan isbeddelka ka dhac ku noqdo isbeddela wallahi de runtii waxa aan maqlaaba horta nabadda ugu weyn laakiin de halkan kuma go'na waxa sababa ka socda halkan nabad hadda waa muuqata oo gobolka qura ilaa heer nabad ka jirto way horana markii horeba Soomaalidu de waa ahaayeen shantii qowmiyadood ee maamulka iyo waxaan dhisay laakiin effectively maamulka qoliyaha TPLF to ay dhiseen wuxuu ahaa maamul highly centralized oo wax walba awoodoo dhani ay taalo Addis Ababa waxaan u malaynayaa hadda siday wax u socdaanna waa ilmi roganaysa waa foolanaysa laakiin waxay dhali doonto runtii wax gooni u ah kilinka ma noqonayo iyo ismaamulka Soomaaliyeed waa waxa sida Ethiopia iyo geeska Afrika oo dhan wax ku dambeeyaan laakiin hadda jabhadii iyo maamulkii inay wada shaqaynayaan oo laba xisbi ka inay la heshiiyay oo understanding uu jiro oo maamulkana xisbigan xaakimka uu ka mid yahay qolyahan jabhaduna xisbi mucaarida ay yihiin laakiin Addis Ababana iyo xagga sarana in la isfahmo ay heshiiyeen halkana de maamulka ay heshiiyeen oo ay hadda wax carqaladihii ay muuqan taas runtii waa ka isbeddelka ugu weyn muuqda iyo nabadan de dhulka taala oo hadda haddii jabhaduna meel si ay wax u aragto maamulkana si kale u arko waxay u noqon lahayd de jugjug meeshaada jug way xilliga wasaaraha Soomaaliya aad sida ogna waxa yaraa mas'uuliyiinta federaalka ee ku jira Soomaalida hadda waxa ku jira federaalka mas'uuliyiin hadda waxaa jira mas'uuliyiin Soomaali ah oo xeer federaal ku jira way ka mid tahay wasiirada sida iyo mas'uuliyiin kale may waa runtii dadka dhex muuqda waa jiraan oo especially Ahmed Shide de waa nin Soomaaliya nin maamulka ka dhex muuqday oo Soomaaliya oo markii ilaa hadda mar walba ama wasiir hore maraan anu kala kulmay Addis Ababa wasiirka gaadiid iyo majxubu waaga madheeyaha warfaafinta email buu ahaa kabacdi wasiir ku xigeen maaliyadda haddana waa wasiir ku xigeenka maaliyadda wasiirka maaliyadda marka waa positionska ugu culus ee habka federaalki waana ku faraxsanahay nin Soomaali inuu awoodahay aad iyo aad baan noogu faraxsanahay filsan oo kale oo gabadh dhalinyaro ah oo wax baratay oo active ah oo ku dhaclay oo isa soo saartay inay ka mid tahay aad baan ugu faraxsanahay aad bay u dhirigelinaysaa in badan oo Soomaaliyeed qof Soomaali oo dhowr iyo 30 jir ama 40 gaari dhalinyaro ma aha cimrigeena inteenu ku gaarnaa average
afartameeye ah waxaa leedahay boos weyn oo haweenkii iyo carruurtii dhallinyaradii meel ay mithaal u noqon karto dadka madoowey hadda gabadhaas la yidhaah Kamala Harris vice presidentka dad badan oo aqaliyaadka dadka laga tiro badan yahay ama ha madoobaadeen ama muslim ama immigrants ahaadeen yaa runtii u arkaya inayna rajo leeyihiin inayna meel sare ay gaari lahaa markaa filsan oo kale gabdho badan khaasatan gabdho Soomaaliyeed oo wax bartay yaa sidaa iyadu ay ku soo baxday aan ugu soo baxay waday u furtay mithaal fiican bay u noqonaysaa waana ku hambalyeynaya waana ku faraxsanahay waxaana rajaynayaa dadka mustaqbalka geeska Afrika dowrka ku yeelanaya sidii wax loo qaban lahaa ee nabad waarta loo gaari lahaa ee integration iyo isu imaado geeska Afrika oo dhan ka qayb gala historica taariikhiga inay ka mid noqotana waa ugu hambalyeynaya waana ugu rajaynaya waxaan ku siin doonaa hadalkaad ugu dambeeyay adiga oo soo gabagabeyn doona hadalkaad ugu dambeeyay waxaan ku soo gabagabeynayaa aad baan ugu faraxsanahay inaan magaaladan Jigjiga imi aad bay dhiiri gelinaysaa waxyaalaha hadda ismaamulkana sidoo u shaqeynayo ee Addis Ababana uu la shaqeynayo waxaan rajaynayaa in badan baa iyaka Soomaali lahayd Soomaali galbeed oo wax badan oo sacrifice loo sameeyay iyakuna dowrkooda inay cayaaraan oo kow iyakuna heshiiyaan oo leadershipkii loo baahnaa iyo yoolkii ummadda Soomaalidu lahaan jirtay inay noqdaan dabku meeshu ka baxayo ifku ka muuqdana inay noqdaan kana warhayaan oo kulley waxa xamar yaala waanayna wada khusaysaa inaan la niyad shabin laakiin in badan oo u tafaxaydata ma aha inaan anigu meesha ka dhex muuqdo laakiin wanaaga iyo ka qaybgalka dhismaha iyo haddii loo dareerayo axsaab mabda iyo qadiyad ku sugan magaaladan SYSH markii la aasaasay 1943 baa SYSH la sameeyay magaaladan meelihii ugu horeeyay ee ugu xoog badnaa SYL bay ahayd waxa uu dhibaatada keenay markii Ingiriisku 1948 wax kala wareejiyay dhibaatadii gaadhay dadkii lagu laayay iyo waana la socdaa haddana waa istaahishaa leadershipka Soomaalida iyo magaalada aan joogay Hargeysa على هان waxaan qabaa labada magaalo meelaha rajada ugu weyn aan ka qabo Soomaali weyn hadda waa la isu socdaa waa la iska warhayaa inay dib u madoobaan oo de aqli iyo xikmad Ilaahay ugu manaysay hadiiba ay noqoto Horn of Africa oo dhan baaba isu yimi hadii Soomaalidu markaa iyagu Horn of Africa soo isugu timi intooda lagu ururin karo waa rajo fiican ayaga oo dawlado kala duwan iyako haday doonayso hal dawlada haday noqonayso meeshan aynu joognaa wanaaga Horn of Africa door weyn bay ku leedahay laano dadkan hadayaan raalli ahayn hadayaan kalsooni jirin hadayaan u arkin dantoodu inay sabab ku xidhan tahay Soomaali kale oo Ethiopia u arkaysa danay leeyihiin inay taalaana ma jirto marka warkayga waxaan ku soo koobaya ma la dhihi karaa fargelinta Ethiopia Soomaaliya ku heshay way dhamaatay wallahi dawlad daris leeyahay weeye haday Soomaalidu helayso iyaba waa fargelin lahaayeen iyaba wax danta Soomaaliya taa laguma laakiin boqolkiiba laguma eedayn karo laakiin iyaga sidii hore lama waa jirtaa gobolaysigan iyo walwalka Jubbaland laga qaba iyo ciidamada Ethiopia joogay iyo waa ogahay waxyaalaha dareenka waa u qabaa iyo walwalada muuqda laakiin anigu waxaan qabaa danta Ethiopia iyo maamulkan hadda joogaana kulley inta aan dhawaaqooda iyo aan ka maqlayno wax runtii aan ku hiran karno oo yoola waa u eegay oo integration kan iyo la isu wada yimaado oo haday noqoto Eritrea ama Ethiopia oo Sudan ama Soomaali shirarka iyo hadallada meelaha laga sheegaya waa warkaas inay sii socdo waa rajaynaya in maadaama geeska Afrika midooyaan Soomaalida inay isaga warhayaan hadiiba la midoobo hadii even economically la midoobo
waa maqlayaa Ethiopia weligeedu waa ku taamaysay inay dekad yeelato Soomaaliyana waxay dadka Soomaalidu leeyihiin waxa ugu weyn waa baddaas danaha la leeyahay dekaduna macna waxa yeelanaysaa haddii suuq weyn ka dambeeyo suuqi weynana waa Ethiopia ila Afrikadaas marka tan moota Soomaaliya dekadaas inay sidoo kale isticmaasho integration lagu raaliyahay hadda aan midowno madaxweyne maxaa yeelana dawlad qura waxaan ka hadlaynay Hargeysa iyo Khaatumo ama Hargeysa iyo Xamar taadi sababana kaba fog laakiin wax lagu hiran karo oo danteenu ku wada jirto waa istaasha waad aad baa mahadsantahay adiga mudan ku mahadsantahay walaashiisa nabad TV ma aad baad mahadsantahay mahadsanid wasaare hawsha fiicanna sii wada waa mahadsantahay inta waxay noo wada daawadayaal barnaamijkii siyaasadda oo aad ka daawaneysay TV-ga caalamiga nabad TV oo maanta noogu ahaa marti siyaasi weyn sidoo kalena ahaa wasaarihii ugu horeeyay Soomaaliya dawladda haatan jirta Cali Khaliif Galeer inta barnaamijkan oo kale aan kulmi doono waxaan ku dhaafeynaa daawadayaal sidaas iyo nabadgelyo